الله u naxariistay abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga Soomaaliyeed Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa 9 sano ka hor maanta oo kale ku dhintay weerar argagixisada ay ku qaadeen hoteelka Saxafi oo ku yaala lambar 4 koodii November sanadkii 2015 marxuumka oo ahaa nin ku sifoobay shakhsiyadda geesinimada saxda ah ayaa lagu xasuustaa inuu hogaaminayay howlgalladii ugu adkaa ee ciidanka xoogga dalka ay kula wareegeen magaalada Muqdisho oo badi ay haysteen al-shabaab iyo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Dhagabadan ayaa ahaa ninkii shabaab u bixiyay ama ugu yeeri jiray erayga jid iyo jahadiid kaas oo caan uu ku ahaa uuna adeegsan jiray xilli walbaahi oo uu ka hadlayo howlgalka iyo dagaalka lagula jiray kooxda. ka horgeeridiisa maleeshiyaadka shabaab ayaa in badan ku guuldareystay inay dilaan iyaga oo ku fashilmay isku dayo dhowr ah oo ay sameeyeen argagixisada kuwaas oo u arkayay qodax ciribta kaga taagneed. in ka badan hal saac ayuu iska caabinayay kooxdii weerartay hoteelka Saxafi inkastoo markii dambe uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray bam gacmeed oo ay ku tuureen. booskii uu ka baxay waxa weli uu yahay mid ay tabayaan ciidanka qalabka sida. waxa uuna dagaal ka bilaabay xilli ay adkeed oo badi dalka ay haysteen argagixisada markaas oo aysan jirin cid ku dhiiran kartay. garoonkii diyaaradaha ee Belidogle, degmada Baraawe, degmada Qoryooley iyo caasimadda Muqdisho ayuu isaga ka saaray al-shabaab kuwaas oo weli xor ka ah in ka badan 10 sano. intaasi kaliya ma ahan, dhul badan ayuu mas'uuliyadeeda iyo sababteeda lahaa ka saaridda kooxda xagjirka ah oo dadka ay ku dhibaateyn jireen. Allah u naxariistay Generaal Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan ayaa meedkiisa loo qaaday gobolka Galgaduud maalin kadib geeridiisa waxaana lagu aasay xiraale oo ehelkiisu ay degan yihiin.